maanta laba ninaan haystaa waxaa la yidhaahdo ninka la yidhaahdo cabdi xirsi iyo nin kabtan ayuub la yidhaah isu bixiyey anigu ma aqaan inuu magaciisu run yahay in kalema kala aqaan marka kabtan ayuub aan ku horumaray horta kabtan ayuub waxaan moodaya xoogaa in oo mid aan qaraabanahay oo daahir cali sow la yidhaahda inaad dhaantaan ku moodahay laakiin inaad hadda oo waxyaala hadda aadan iska hubin ama aad meelaha qaarkoodna xoogaa wadba leedahay oo markii kiiskii xoogaa ta'asubkaygaha ay kusoo direen xoogaa nooc ahaan waa difaacday laakiin warkaaga inta badan beenu ahaa khaasatan haba ugu darnaatay tii laba arrimooda aad iyo aad kaaga muuqatay oo kiiskii cadaadana been baad ka sheegtay badan iyo de tii cabdullaahi yuusufna de awalba beenta isaga kaaga horreeyey oo asaga maba aanan arag nin soomaaliya oo hadda da-diisa ah oo qabyaaladu saas u hadlayso dagaalkaas hadda meeshaas ka dhacayna siduu u fasiray waa beena cadcadaa ka buuxa waxba ka jiri khaasatan de dadkii dhammaayo maaragtay yani raggaasu diinayna isugu yimaadeen diinayna ku dagaalamayeen inuu qabyaalad ka dhigo waa ceeb kabiirahay ku ahayd runtii ceeb kabiirahay ku ahayd adigana hadda asaga isaga raacdo waa isaga kaaga horreeyo baalkii qaa'idna ku ah marka waxaasna ceeb kabiira waayo kiiskaasna haddaan laba meelood kaa tusiyo waxa weeyaan aniga hadda cid hadda oo qabyaalad igu sheegtay asaga unbaa ka jirta asagana waxaa iga difaacay ninka la yidhaha kincon magaciisi waa iloobay hadda laakiin kincona caan ku ahaa aan waagii cabdiqaasin raggii la yimid uu ku jiray markaasaan ui ama qadiyadii bariya cuqdo ka qabtaanaan ku yiri markaasuu yidhi war mid waa yalaa xoogaa macquula iska aheed hadda dhul hawiye waa joog marka war cidna waxba kuuma haysatee orodow yiri laakiin wuxuu ku daray arrin aan isleeyahay runuu ka sheegay wuxuu yidhi war adiga waxaad samaynaysa oo dhan waa la ogyaho inay ilaahay darti kaa tahay buu yidhi cidna kuma haysato ura midaasuna waa midba midda kalena hadee raggu mahabkii maxay ahayd gabaraaba laygu siiye gabaraaba laygu siiye maaragtay baalkii maxay ahayd gadana gabaraa laygu siiye khalaas ilmahayga maaragtay thuluthkood labadaas gabdhoodaaba dhashay midda saddexaad waxa weeyaan fiiriya asaguna meesha uu caydiid ugu xiraayo waxaa qoladan ree caydiidna daaroodtay igu xireen oo xataa ay ceeb iiga dhigeen maaragtay dadkii igu caddeeyeen xataa daaroodu taageera marka saas oo kale marka qoladaas daaroodkiina inay cabdullaahina igu xiro hawiye oo uga dhigo caydiidna oo daarood iga dhigo taasaaba maaragtay waxayba tahay maaragtay aniga taskiye ii ah soo jeeda taasaa taskiye ii ahayd sababto waxa weeyaan waana saas u ah marka kiiskaas marka saas iska ahaa caydiidna waxa weeyaan waxaa la qaatay laba shiraan la qaatay 9 saacadoodaan niqaashayna marna 9 saacadood 5 saacadood iyo bar ka adag aan niqaashayn oo waan ka hadlaynay diinta in dalka diinta lagu xukumo markii isugu kaaya dambaysana waxaan ku kala tagnay wuxuu yidhi anigu diinta waxba kama qabo laakiin dad cilmaaniyihiina waxyla leh marka mana ay ogola haye marka waxaan idhi khalaas halkaasa noo joogto marka soo moojeed halkaasaan ku kala tagnay marka waxa weeyaan bahalkii maxay ahayd aniga cidina midda kalena dad saasaba maba ihiinba aniga waxa weeyaan usra diiniyaan ka soo jeeda ninkii lixaadaan aniga ah wiilkayguna kan 7 waaye oo culummo ah markaasaa dadkoo dhanaanana dhalay annaguna waa dhalan weligana kama aanan qayb gelin rag loogu yimid gurigoodii waa iska jiraan ilaa nimankaan maaragtay qabiilka u duulaahi yani wadaad iyo waran la midna ma kala bixiyaane rag markaa waa nooga dhinteen maaragtay rag soo duulayay maaragtay ay ku weliba uu ku jiro xataa rag ka qaba iyo rag ay dhaleen labaduba ku jiraan soo jeed marka waxa weeyaan waxaas war marka anaga
hadda fitnadan hadda fiiri fitnadan lafteeda soomaalida 30 kan sano oo hal nin oo walaalkay ahaayo cid ay xidid yihiin ay dileen oo gowraceen oo la yaqaano macruufa qadiyad macruuf ay taa ma ahan wax qof kale noogama dhumin ayadana ma aragtay qadiyadaas lama socone waxay qadiyad iska khaas ah iska ah hal qof noogama dhumin haddana waxaan ku faraxsanahay wiilkan ilaahay mahadiis يعني يا دلي أمريكا دي شيء خلاص أنا تاسع بكون فرح سنة هاي مدة بالك محوها مدة بالك محمد نكا على هذا عبد حرسيا وتيجي دورنا إن شاء الله تعالى ثم جدوا مركو ولي قلنا مارتي قبيل وان حديدان لنا هي قلوب والبا هذا وحوا أساسه المهيجا ثلث كودنا ودارات ثلث كبض أنا ودير واي أنت كسوهرت هنا وهويه raxweyta qabsata marka waxaan gabadheedii adinka ii diiday gabar aad u qaaliya oo maartay ragii macalinkeedii wuxuu yiri quraan iyo quwad iyo qurux lagu ma gaaro markaasan gabadhii inta la heshiiyay oo odagii u tagay oo ay ballamiyay oo iiga baxay markaan imid oo iiga baxay gabadhiina iga qarsaday daawalba waa bi yiraahdeen ku habar gidir war gabadha haday ku rabto maartay muxuu ah ma yaan aniga waxaan ilaahay maartay haday khayr ii tahay aan idiyaan marka ma yeelayaan dhahay qallo aan maarta la dirirnan anaga ma furaynaan dhahay ilaa masaafada iyo waxaas anaka la diriri jir waa saas waay marka ayaga xataa waxay maarta maxaa lahjadayada u baran weyday dhahan markaas ay adinka gabadhii diiday adiga gabadhii wariyaa ninkaan ka qabta marka waa saas waay marka Soomaaliya oo dhan aan xidid la lahay arurtayda iyaga ay dhalay alxamdulillah iyagan ku faanay kulligood maarta weligayna maarta kumana dhaqmin kumana fikirin waxaas waqti Cabdullaahi Yuusuf ma ka maqashay adiga